واللحظة أكتوبر سنة كوال لبكون شني لباتن كسو دوادا مركلة إيا تبينتا برامجك برو شو قضبوا وين أو حيصلة أيان عاوة إذن كوكوها يا مقال كلابات وحانا كميدا دولة مصر أيا لأوغادي فرين دبلوماسياديد إيا وليبا مدقالو أدق إن أي كدح قد بنيسو شركة كسوعنا يا شرم الشيخ إيا ودا هدالada aan tooska ahayn ee u dhaxeeya kooxaha Falastiiniga ah iyo sidoo kale nidaamka Israa'iil wargeysyada Israa'iil ayaa daboolka ka qaadaya ujeedada dawladda Masar ay ka leedahay shirkan inay si iskeeda u qabato isla markaana dawladaha waaweyn ee adduunka ay soo bandhigaan kuna aqbalaan dawladda Masar soo jeedinteeda in si degdeg ah loo meelgeliyo haddaba wargeyska ugu afka dheer ee Israa'iil waxa uu leeyahay marka la fiiriyo guushii ciidamada Masar ay ka gaareen bartamihii toddobaatanaadkii dagaaladii ay galeen dawladaha Masar iyo Israa'iil iyo waliba shirkan ay ku qabanayaan Sharm el-Sheikh ayaa waxa ay tahay taariikh la isku akhrinayo Masaaridu waa niman caqli badan oo aan loo dhawaan karin maxay tahay waxyaabaha la ogaaday ee hadda lagu baraarugay arrintani suuragal ma ka dhigi karaysaa nidaamka Israa'iil inuu ka baxo wada hadalka maxay tahay walaaca la qabo warbaan idinkaga hayaa arrintaasi laga bilaabo 7 Oktoobar 2023 maalintii weerarka ay qaadeen kooxaha Falastiiniyiinta ka dhanka ah Israa'iil ciidamada Israa'iiliyiintu waxa ay goor dhaweyd sii daayeen tirada rasmiga ah ee looga dilay dagaalka waxa ay sheegeen qaarkood inay tahay wax xanuun leh marka loo tilmaamo dadka Israa'iiliyiinta in la waayo tiro inta leeg oo askara waliba marka loo qaybiyo 60% dadka la soo daayay magacyadooda iyo askarta la dilay waxay leeyihiin waa kuwa aan curan oo iyagoo gablan ah adduunka ka tagay sida wararkooduba ay ku sheegayaan warbixinayaan sidoo kale arrintaasi idinka sii doonaa inta barnaamijka aan joogno aqoonyahan Falastiini ahna waxa uu daboolka ka qaaday arrin aad warbaahinta carabtu ay u qaadaan dhigayaan oo ku saabsan haddii kooxaha Falastiiniyiintu caawa ay ku dhawaaqaan dhammaan dadka ay hayaan oo ah 20 qof oo nool iyo waliba 40 meyd ah haddii ay fasaxaan oo ay sii daayaan Israa'iilna gacanta loo geliyo ma dhabba qorshaha Trump inuu hirgeli doono maxayse tahay cadaadisyada ka dambeeya arrintan Mareykanka inuu riixo laba qodob oo la yaab leh oo ninkan daboolka ka qaada ayaan idin la wadaagi doonaa iyo waliba magaca aqoonyahankan oo caawa si weyn u haysta dunida carabta sirbu daboolka ka qaada ninkaasi waad arki doontaa inta barnaamijka aan joogno waxaan sidoo kale inta raaci doonaa haddii rabbiga weyn saamaxo maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa 2 qof xabsiyo kala duwan u dirtay oo qaarkood ay sugayaan in dib loo sii xukumo kadib markii la ogaaday in ay la shaqeynayeen sirdoonka Israa'iil Mossad la yiraahdo haddaba labada nin mid ka mid ah waa qareen caan ah waxa la ogaaday sirta wadanka inuu iibsanayay sharciga ayaa wax walba ka shareeya ayay maxkamadda Istanbul leedahay kadib markii ninkan la soo qabtay ay la yaab iyo ama kaag noqotay haddaba kaalin intee leeg ay ku lahayeen tallaabadan in la qaado sirdoonka wadanka Turkiga ee MIT la yiraahdo arrimahaas ayaan isugu kaaxiraya caawa iyo warar kale oo ku saabsan gobolka bariga dhexe Cabdicasiis Barrow ayaan ahay meel kasta oo aad joogtaan akhyaaray soo dhawaada ayaan idin leeyahay oo ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara barnaamijka la wadaaga saaxiibada share gareeya isla markaana haddii aad Facebook nagala socoto sharaf bay noo tahay inaad nagu soo biirto iyo waliba askarta uga dhimatay dagaalka gobolka bariga dhexe ka soconaya laga soo tiriyo 7 Oktoobar 2023 maalinkii kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta ay fureen dagaalka ballaaran ee halkaasi ka soconaya warbixin uu qoray wargeyska Ra'yul Yawm ayaa tibaaxaya isagoo xiganaya wasaaradda difaaca ee Israa'iil in arrintan ay u muuqato mid la yaab leh talow tirada askar la qariya miyaa jirta suuragal ma tahay Israa'iil intaanu kaliya in laga dilay wadooda warbaahinta ay daboolka keenayaan wasaaradda dagaalka Israa'iil ayaa isniinta maanta ah oo 6 ay ku beegan tahay Oktoobar 2025 daabacday warbixin cusub oo rasmi ah oo ku saabsan qasaaraha ciidamada laga bilaabo 7 Oktoobar 2023 taas oo lagu sheegay in ay gaarayaan 1,152 askari oo dagaalkaasi ku dhintay
marka la eego meelo kala duwan oo ay ka mid tahay daanta galbeed koonfurta lubnaan iyo marinka go'doonsan sida laga soo xigta wasaaradda in ka badan 40% dadka dhintay oo qiyaastii gaaraya 487 askari waxay ahaayeen dhalinyaro aan gaarin da'da 21 sano halka 140 askarina ay ahaayeen dad ka weyn 40 sano baa la yiri sida warbixinta ku qoran warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in dadka dhintay ay kala ahaayeen 135 askari oo ka tirsan ciidamada militariga ah 100 askari oo booliis ah 9 xubnood oo ka tirsan hay'adda sirdoonka maxalliga ah iyo waliba 8 xubnood oo ka tirsan maamulka ciidamada xabsiyada loo yaqaan Israa'iil waxaa sidoo kale inta lagu daray 318 askari inay ahaayeen waa guud ahaan askartaasi askarta kaydka ah ee maalinta loo baahdo dagaalada la geliyo 283 askari inay ahaayeen kuwa xirfadlayaal oo maalin walba u shaqo taga ciidamada iyo waliba 43 xubnood inay ahaayeen cutubyada sida gaarka u feejigan ee commandoska ah laga bilaabo weeraradaasi sidoo kale warbixintan si cilmi ah ayay u faaqidaysaa Israa'iil waxay leeyihiin 152 askari oo Israa'iil ayaa guud ahaan dhintay dagaalka 200 iyo waliba 62 kamid ah kuwa dhintay waxay ahaayeen sanadkii la soo dhaafay 40% dadkaasi waxay ahaayeen dhalinyaro aan 22 gaarin 186 askari waa rag halka 66 ay ahaayeen gabdho Israa'iili ah oo dagaalamayay 801 kamidana waxay ahaayeen dad aan guursan oo iyagoo gablana dunida isaga huleelay oo ay dileen kooxaha wax iska caabinta Israa'iil sida weyn isku haya warbaahinta Israa'iilna waxa ay ka hadlaysaa waxyaabaha keenaya dawladda Masar inay ku qabato Sharm el-Sheikh wada hadallada u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo waliba nidaamkan ka soo horjeeda wargeyska la yiraahdo Dacwada Xarnood waxa uu daboolka ka qaadaya marka lagu akhriyo siyaasadda madaxweyne Sisi tilaabooyinka maalmihii ugu dambeeyay uu qaadayay iyo shirkan ka soconaya Sharm el-Sheikh waxa uu leeyahay waa jab nidaamkan soo gaaray oo ay ahayd in laga fiirsado dawladda Masar waxay u dabaaldegaysaa buu yiri 1973 Oktoobar weerarkii ay qaadeen ciidamadooda ee Israa'iil lagu jabiyay waxana maanta u dabaaldegayaan buu yiri arrintaasi iyagoo ku beegaya arrinta la xiriirta wada hadalladan ay doonayaan waa laba fariin oo isbarbar socota mar waa Masar inay tahay dawlad diblomaasiyadeedu ay aad u sareyso mar kalena waxay tahay in laga hortagayo waxyaabo Israa'iil looga shakisnaa maalmihii dambe sida dooda warkooda loo dhigay wargeyska Ra'yul Yawm waxa uu leeyahay isagoo xiganaya wargeyska kale ee Dacwada Xarnood lagu magacaabo ayaa sheegay in maanta dawladda Masar ay si ula kac ah u doonayso beetri ama u doontay inay qabato wada hadallada lagu soo afjarayo dagaalka marinka wada hadalladan oo furmay maanta oo Isniina 6 ay tahay Oktoobar 2025 kana dhacaya magaalada Sharm el-Sheikh taas oo ku beegan baa la yiri 52 guuradii ka soo wareegatay xuska guushii ciidanka Masar ay gaareen 6 Oktoobar 1973 wargeysku waxa uu sheegay in baraha bulshada ee Masar si weyn ay uga hadlayeen isbarbar dhiga iyadoo dadka qaar ay sheegeen in xulashada waqtigan ay tahay kaftan siyaasadeed loo durxulay ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo fariin ku calaamaysan Israa'iil in ay dareemayso Masar inaysan ahayn dawlad cayaar ah marka la fiiriyo goolihii Oktoobar ay gaartay Masar ayaa maanta u dabaaldegaysa baa la yiri maalintii ciidamadeedu ay weerar lama filaan ah ku qaadeen Israa'iil sanadkii 1973 taas oo lagu beegsaday jihada dagaalka bariga dhexe ama badasho baa la yiri jihada dagaalka bariga dhexe halkaas oo isla waqtigaasi laga bilaabay 52 sano ka hor saacadu markay ahayd 2 duhurnimo ayaa lagu bilaabay wada hadallo cusub oo ku saabsan joojinta dagaalka marinka marka waxa la leeyahay Masar hadaf ama ujeed ayay ka lahayd arrintan ay maanta ku dhaqaaqeen sida arrintan ay tilmaamayso wargeysku waxa uu yiri wafuud Israa'iili oo maanta gaaray Sharm el-Sheikh oo dhinacyo kala duwan ay horkacayaan waxa ay ka dhigan tahay Masar inay gool weyn dhalisay marka loo fiirinayo isbedelada waaweyn ee socda
intaa kuma ekeen wargeyskana waxa uu sidoo kale ku daray tallaabooyin uu maanta qaaday madaxweyne cabdifataax al-siisi waxa uu leeyahay warbixintu waxay sheegtay in madaxweyne siisi uu maanta booqday qabriga askarta dagaalkii ku dhimatay iyo waliba qabriyada ay ku aasan yihiin madaxweynayaal hore Anwar Saadaad iyo Jamaal Cabdinaasir labadaba isagoo sidoo kale la shiray baa layiri golaha sare ee ciidamada qaranka wadankaasi Masar taasoo runtii noqonaysa fariin ay ahayd Israa'iil inay ka fiirsato ayuu wargeysku doodiisa u dhigay inkasta oo Masar sanad kasta fasax rasmi ah ay kala jirtay 6 Oktoobar haddana sanadkan fasaxa waxaa loo wareejiyay 9 Oktoobar si loo waafajiyay baa layiri fasaxa isbuuca arrimaha qaar ka mid ah falanqeeyaasha Israa'iil ay sheegayaan ayaa muujinaysa in isku dayga Masar ay rabto ay kala saaraysa baa layiri 6 Oktoobar 1970 iyo 3 iyo 7 Oktoobar 2000 iyo waliba 23 sida dooda u dhigtay laakiin Siisi xiisadiisa iyo xaaladiisa waxa la leeyahay waa mid culus marka dhinacyo kala duwan laga eegaba bal ka waran haddii aan ku iraahdo dagaalka ma baaqan doono mana joogsanayo haddii kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiintu ay dhiibaan dadka ay gacanta ku hayaan isla markaana waxaa jira laba qorshe oo Trump iyo Netanyahu ay ka damacsan yihiin dagaalkan bariga dhexe iyo qorshaha ay soo bandhigeenba arrintani ma aha mid jirnaxitaana iyo dadaaladii carabta ku yimid iyo cadaadisyadii caalamka laakiin waxaa jira waxyaabo biyaha hoostooda yaalla oo aan la wada fahmin sida ani kuma oranaya waxa oranaya qoraaga Cabdulbaari Cudwaan oo kamid ah ragga aqoonyahanka ee Falastiiniyiinta ee magaca ku dhaxlay warbaahinta falanqeeyana isbedelada waaweyn qoraaga iyo falanqeeyaha caanka ah ee Cudwaan ayaa maanta faalla dheer ku qoray baggiisa baraha bulshada isagoo ka hadlay su'aalo weyn oo hadda taagan bal ka waran buu yiri haddii xitaa maxaabiista la hayo la sii daayo kama dhigna in dagaalku istaagi doono haddana waxa uu yiri marka la fiiriyo Trump sida uu wax u rabo iyo doodaha uu raadinayo iyo qorshahan uu wado waa mid isaga gaar ah uusan kala hayn dadkan balanbalay dhibaatooyinkan in la joojiyo waxa uu rabaa shahaadada nabadda ama abaalmarinta nabadda ee Nobel ee la bixin doono dhamaadka bisha December inuu helo isla markaana kaarka ah in magaaladan dagaalka ka socda uu joojiyo uu dunida u sheego halka ninkan kale Netanyahu la yiraahdo cadaadiska ku sii badanaya ee adduunka uga imaanaya maxkamadaha ku raad jooga musuqmaasuqa gudaha looga haysto maxkamadaha ka raadinaya gudaha nidaamka Israa'iil iyo siyaasadiisa guracan darteed uu doonayo dagaalkan inuu isku dhax qariyo sida daraadeed waxa uu leeyahay tan dambe ee Netanyahu ayaa markasta xoog badan dadkan la haysto oo 20 qof gaaraya ee nool iyo 40 meedadka ah looma jeedo ayuu doodiisa ku leeyahay hasaatee waxa uu leeyahay waxa jira Falastiiniyiintu ma haystaan diyaaradda F-35 oo ma dagaalami karaan buu leeyahay laakiin dhinaca kale waxay haystaan awood ka ballaaran taas oo ah niyad saafi ah ka go'naashiyo dagaal iyo guulo waaweyn waxaan ku adkaynayaa buu leeyahay in ay dagaalamaan oo aanay degdeg isku dhiibin dhammaan waxa ka soconaya guud ahaanba dhulkan Sharm el-Sheikh magaalada ah oo ku taala Masar waxa uu leeyahay waa dhan dabagaale mana muuqata in la dhowri doono sidaas ayuu doodiisa u dhigay marka ninkan rajaxuma aad u ballaaran ayuu muujinayaa waxa uu leeyahay nin abaalmarin raadinaya iyo nin cadaadis ka baxsanaya ayaa labadan ujeedaba wata oo lama doonayo inaan xal gaarno dhinaca dalka Turkiga haddii aan imaadana maxkamad ku taala Istanbul ayaa maanta mar kale amartay in xabsiga lagu sii hayo laba qofood oo lagu kala magacaabo Sargan Kazak oo lagu eedeeyay inuu ka shaqeynayay ama uu ahaa basaas la howlgalaya hay'adda Mossad ee Israa'iil ay leedahay isla markaana gudaha wadanka Turkiga ka shaqeynayay iyo qareen lagu magacaabo Turkul Handib kaas oo lagu toonsan yahay in uu xoga muhiim ah ka iibinayay shirkad meel dhaxal taagan oo u shaqeysa nidaamka Mossad ee la yiraahdo Israa'iil sirdoonkeeda dibadda u qaabilsan raggan waxaa soo qabtay hay'adda sirdoonka ee MIT la yiraahdo mas'uuliyiin ka tirsan iyo waliba askar ka tirsan iyo waliba saraakiisha booliiska Istanbul kuwaas oo hadda si weyn loo wado
basaasiintan ayaa la filayaa sida laga soo xigtay ila amni howlgalka lagu soo qabtay in uu ahaa mid aad iyo aad muhiim u ah oo metron la yidhaahdo waxaana la qabtay maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay sirdoonka xafiiska dacwad oogaha guud ee Istanbul iyo waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa ku tilmaamaya labada nin ay ahaayeen kuwa aad iyo aad qatartoodu ay u ballaaran tahay isla markaana aad looga fakaro in dadku aanay la shaqayn hay'ado sirdoon oo kale oo dalal shisheeye ka tirsan Turkiga iyo Israel si weyn ayay isku hayeen maalmihii ugu dambeeyay waxaana tallaabadan ay muujinaysaa inay tahay mid aad iyo aad u qatar badan qaybtan la socotay tawinta qaybtan intaas ayaan ku gabagabeynayaa warar kale ayaa noo soo socda